laakiin waxaan ogahay si guud aragtida ku saabsan in dadka deegaankaas aysan kala xirnaan karin inay tahay in la heshiiyo in isfaham iyo awood qaybsi iyo isu imaansho iyo maamul la wada dhisto heshiisna lagu yahay oo laga wada qayb galo inuu sameysmo waxa way taas aragti aad u fiican aan aad u soo dhaweynayna waaye shirkan jabuuti oo inay kulan yeelanayaan mas'uuliyiinta deegaankaas ka soo jeeda inay wada hadal bilaabi rabaan aan ayadana waxaan u rajaynaynaa insha Allah inay wax fiican oo macna leh inay ka soo baxaan inkastoo oo xildhibaan Cabdixakiin uu ka muujinayo aragtida wanaagsan haddana gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa u arka shirkaasi in uu yahay mid aqoon isweydaarsi oo san ahayn go'aan mid rasmi ah ka soo bixi kara horta wada hadaladan hadda socda ee Jabuuti la yiri wada hadal ayaa ka dhacaya runtii ma aha wada hadal ma aha waa workshop waaye oo la isku baranayo oo maartay la sii fahmayo wada hadalada si maartay sidii laga yeeli lahaa loo sii gogol xaariyo waa maahane ma aha wada hadal rasmi ah oo Galmudug iyo sunna ay wada galayaan ma aha waa workshop sida ay noo sheegeen qolooyinka hogaaminaya sida igad muxuu hadaba go'aanka gudoomiyaha baarlamaanka ee Galmudug ka bedeli doona hadii shirka ay go'aamo ka soo baxaan kan aad in kugu cadeeyo Nairobi sida warbixinta nagu soo gaartay workshop oo ah isaga naftirkiisa igadana waa la hadalnay dawladda federaalkana waa kala hadalnay arrimankaas runtii kulligeena waxaan aaminsanahay in workshop ahayd wax ka soo baxay oo go'aano ah oo la wadana ma jirto wada tashi rasmi ah oo Nairobi ka jirayna ma jiro midda hadda ka jirta Jabuutina wada tashi rasmi ah ma aha go'aano ka soo bixi karan mana jiraan Jabuuti hadii go'aano ka soo baxaan oo ay ku heshiinayaan Galmudug iyo ahlusuna ay ku heshiinayaan anaga ma aqoonsanin qaar ka mid ah aasaasiyaasha Galmudug iyo maamul goboleedka dhexe ahlusuna waljameeca ayaa iyaguna bixiyay aragtiyo kala duwan anigu ilaahay khayran ka rajaynayaa in ilaahay niyadooda isu soo duman ilaahay baan ka baryaynaa umadaanina waxa waaye 27 sano ayaa qoloba meel ku dhageysay marka in ilaahay fududeeyo oo arintaasi wax ka soo baxaan lagu farxo anigu sidaasan fikirkaygu kaas waaye ilaahayna waa ka rajaynayna marka waxaan u arkaa inaan waxba ka soo baxay sababtoo nin gabadhaada raba nin naagtaada raba gabadhaada kuma qalbi waa laba madaxweyne nin walba kursiga raba madaxweynenimadu raba marka ku dawoobi maayaan garaada isku kala celiyaan ma leh waxaan u arkaa wada hadalada ahlusuna iyo Galmudug qaybtiisa labaad wajigiisa labaad uga furmaya dalka Jabuuti inuu yahay heshiis ama wada hadal xilligii loo baahnaa ku soo beegmay anigu u aaneynayna in deegaanada Mudug iyo Galgaduud runtii ay ka jiraan xaalado adag marka in heshiis xal waara looga gaaro khilaafaadkii ama madmadowgii siyaasadeed in muddo ka soo taagnaa goboladaas Mudug iyo Galgaduud kasokow in shirka Jabuuti iyo kii hore ee Nairobi ka dhacay ay garwadeeno ka ahaayeen urur goboleedka igad haddana ma muuqato doorka dawladda dhexe ee Soomaaliya in shirkaasi ay ku leeyihiin hadaba maxaa xildhibaanada iyo xubnaha wasiirada ee Galmudug ka soo jeeda loogu wargelin waayay shirkaasi dhinaca laga fiiriyo inaga waa sax deegaankaasna la ka soo doortay waa deegaankeeni laakiin haddana deegaanka mas'uuliyiin uu leeyahay dad wuxuu leeyahay taladiisa gacanta ku haya inaga howlahaas guud iyo baarlamaanka federaalka iyo dawladnimadii Soomaaliya intii aan door ku yeelan karnay taa shaqadeenu waa run deegaanku waa deegaankeeni wax ka qabadkiisa iyo waxtarkiisa laakiin ka xildhibaanku shaqadii shaqo fulineed ma aha shaqo yawmi oo maalin walba u qabta ma aha waa shaqo u baahan shaqo waxa weeyaan wax la sameeyo inuu ilaaliyo waay shaqadiisu iyo wixii wax lagu sameyn lahaa inuu sameeyo sharciyadii ah laakiin fulinta iyo shaqada yawmiga ah maalin walba la qabanayo waa shaqo u taala aan isleeyahay golaha shacabka waxay u taalaa maartay mas'uuliyiinta deegaanka u taalaa marka iyagii hadii ay ilaahay waafajiyay inay isu yimaadaan oo is arkaan anagu inaan support garayno oo ku dhiirigelin inay hore u socdaan ayay tahay muhiimadeenu waana waxaan isleeyahay taasaana hadda wax fiican oo runtii aan ilaahay uga rajaynayno inuu miro dhal fiican ka dhigo shirka uga furmaya labada dhinac Jabuuti ayaa waxa sidoo kale ka qayb galaya madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyadoo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf hiba Maxamed Nuur Soomaali Cable Muqdisho